السلام عليكم مالين wanaagsan waa idin salaamay dhammaantiin waxaan rabaa xogaa jir inaan idin xasuusiyo yacni nafsadaada ma ilowda inta ugu badan dadka boqolkiiba 90 nafsadooda waa iloobaan. They don't take care of themselves. Kama fikiraan cuntaday cunayaan, kama fikiraan jirkooda waxay gelinayaan, kama fikiraan waxa ay qaadanayaan, kama fikiraan yacni shape-kooda. They are out of shape. Marka adiga ahaan dadkaas miyaa ka mid tahay mise waxaa ka mid tahay very few people-ka dadka aadka u yar oo nafsadooda ka fikiro? Bal adiga isweydiiye. Inta badan dadku iska cararayaan, waxaa waaye junk food iska cunayaan, yacni nafsadooda ma ka taxadirayaan, ma yaqaanaan yacni waxaan jirkooda gelinayaan caafimaad ahaan hadhow maxay u taraysaa. Waa ogahay inta badan dadka waxay leeyihiin waa shaqeeyaa, waa mashquulsanahay, diet iyo training iyo gym iyo waqti uma helayo. Waxaan ku weydiinaa dadka saas ah, waxaan weydiin lahaa hadhow markii aad noqoto qof obese ah, wadnaha aad u garaacmayo, socon karin, xanuunsan markaa noqoto, shaqadaas aad u cararaysid, caafimaadkaaga ma ka taxadiraysa? Because qofka bini'aadanka caafimaadkiisa wax ka muhiimsan ma jiraan. Waxa aad ku dhaqdhaqaaqayso waa caafimaadkaaga. Marka waxaa loo baahan yahay nafsadaada inaad ka fikirtid, waxaa loo baahan yahay nafsadaada inaad ka taxadirtid, waxaa loo baahan yahay inaad ka fikirtid cuntooyinkan junk foodka, sokorta, waxaan macaanka badan aad isku daldalaysid hadhow maxay kuu tari doonaan inaad ka fikirtaa loo baahan yahay. Hadhow caafimaad ahaan ma ku caawin doonaan inaad ka fikirtaa loo baahan yahay. Haddii aadan taas ka fikiraynin, idmeynis waxaa waaye nafsadaada dayacaysa. Waa fahanteena u malaynaa. Marka dadka qaar waxay ku leeyihiin waqti ma hayo oo mashquulsanaya. Aniga hadda tusaale ahaan idiin soo qaato 2 sano ka hor, 2 sano bar ka hor, meel ka shaqeynaayo, meel ilaa subax ilaa 8 saac ka shaqeynaayo ama 2 shaqada kalena waxaan galayay 2 kadib aan galayay kan qadeeyo ilaa 9 pm aan ka shaqeynaayo. Still time aan ku train gareey ayaan helay. Sababta maxay ahayd? Early in the morning inta ka 5 am ayaa gym ka tagi jiray because Soomaaliya joogo. Marka Soomaaliya gym-ka 5 am ama 5 subaxnimo, salaad subax kadib uu furan yahay. Xilligaas train gareyn jiray. Yani most of the people intaas ma sameyn lahayn, excuse ka dhigan lahayn, waxay dhihi lahayn laba mar shaqeeya sidaa darteed waqti aan ku jimicsado ma helayo. Marka that's just excuse. Marka guys, excuse-ka hala dhaafo, nafsadiina laga taxadiro. Marka haddii aadan garanaynin yacni maxaa healthy ah, maxaa cuntaa, maxaa iska daysaa, ila soo xiriir. I'm ready to help you. Diyaar ayaan u ahay inaan kaa caawiyo. Marka ogow, caafimaadkaaga ayaa wax walba ku tahay. Haddii aad maanta nafsadaada dayacdo, obese noqoto oo yacni heart diseases, obesity, sokor, balaayo, waxaas dhan ay kugu dhacaan, dan waxba ma qabsan karaysa hadhow. Marka waxaa waaye healthy eating-ka iyo exercise-ka waa prevention waaye. Cudurro badan ay jirkaaga ka difaacayaan. Guys, I'm ready to help you. Haddii aad diyaar u tihiin, ila soo xiriira. Waa mahadsantihiin. See you. Bye bye.